waxaan halkan u soo fadhiistay inaan ka hadlo laba qodob. labada qodob oo kala ah fariin aan dirayo xukuumadda oo ku saabsan arrimihii biyaha ee aan ka hadli jiray inta badan iyo arrin kale oo ah tala soo jeedin aan u dirayo xukuumadda iyo xisbiyada oo ku saabsan xaaladda waddanka iyo muranka siyaasadeed ee ka taagan. labadaa qodob haddii aan kala horreysiiyo waxaan ku horreysiinayaa arrinta biyaha oo ah fariin aan u dirayo madaxweynaha, waayo wasiirka biyaha in badan oo halkan aan kala hadlay iyo in badan oo wasaaradda biyuhu jirtayba fariimaha noocaasa kamay jawaabin. sidaa daraaddeed maanta iyada waxba u diri maayee fariintaydaa waxaan toos ugu diraya madaxweynaha. waxaan leeyahay mudane madaxweyne, waxaa la yidhi beel ka mida beelaha somalilan baa beri dowladda ingiriiska ay waddankan xukumaysa caaqil weydiisatay. muddo badan bay ku noqnoqotay. mar kastaba ninkii badhasaabka ahaa reerkaa caaqilka doonayay dib buu u celiyaa. maalintii dambe ayaa nin odayadii caaqilka doonayey ka midii wuxuu yidhi, guddoomiye waxaan ku weydiiyey haddii beeshayadan maalin walba ku soo noqnoqonaysa ee caaqilka doonaysa aad siiso caaqil macalanka ingiriiska ee aan cadceedu ka dhicin oo australia ilaa somalilan xukuma ayaa dhacaya. waxaan ku leeyahay madaxweyne, haddii beelahan haraadan iyo degmooyinkan koonfurta iyo beriga hargeysa haraadan aad dhaamankan maalin walba aanu qandaraasyadooda iyo bixintooda aanu maqlayno kale aad ku darto macalanka somalilan baa dhacaya. waxaanu ku leenahay calanka somalilan dhici maaye deegaanadan haraadan ee biyuhu hareeraha ka dhaafdhaafayaan dee dhaamamka ku dar xaq bay u leeyihin ama iyo rigaga ilan somalilanna in meeli biyo loo qoday ay ka dhareegto maalin walba carruurtu kaga daadato meelaha qaarna haraad loogu go-a cadaalad iyo caqli maahae. taasi waa intaa. arrinta kale labaadan ka hadlayaa waxaa weeye xaaladda waddanka. in badan baan halkan soo fadhiistay xaaladda waddanka ee muranka anigoo ka hadlaya oo si nasteexaa uga hadlaya. maantana tii un baan wadaa. waxaa jirtaa 1960 calankii aynu hellay ee ilaahayna siiye bay naga lumay oo aynu fudeed xamar u geyni. laakiin dadkaa inoo noolaa dadkeennii oo wada socdaa xamar calankii geeyo tuuray kadibna markay ogaadeen inay khasaareen dee baadidoonkiisi iyagoo mudaysan bay baadi dooneen. alxamdulillahi rabbilcaalamiin waa innagaa maanta haysana. haddii somalilan maanta wax ka xumaadaan dadkii dowladnimaduba way naga wada lumaya, dadkaana inaga hor lumaya. ragga maanta siyaasadda odayada kaa waxaan leeyahay, haddii maanta somalilan xumaato dib oo dambayso qof somalilan ka soo jeeda oo dowladnimo ugu hamiya oo xornimo ugu hamiya oo gobonnimo ugu hamiya la arki maayo. nin faransiisa oo somalilan ilaa waagiya sanamta ka soo shaqayn jiray ayaa buug qoray. buuggaa ninkaasi wuxuu yidhi waa wada haysataano xafiisyadu idin yaallaa somalilan dalcad bay maraysaa buuhi. haddii dadka hogaaminaya dalcaddaa ka saari waayaan oo gaadhigaasi dib uga soo noqdo waxay masaariifsanayaan buu yidhi riyooyinka carruurtooda mustaqbalka. carruurtooda dambe han yeelan maysa buuhi haddii waxa ay haystaan ay iska khasaariyaan. waxaa laga rabaa halkaa ay marayaan inaanay dib uga noqon inay hore uga socdaan. arrintaa waxaa lagu celcelinayaa 30 sannadood wixii aynu ku soo tabcaynay 30 sannadood oo ka horreeyey in aynu ku riyoonaynay iyo ay muran siyaasadeed inagaga burburayno maqalmaanay. muran kastoo siyaasadeed waa la xallin karaa, laakiin burbur inagu dhaca lama xallin karo. waxaanu leenahay madaxweynaha mid baan leeyahay, xisbiyada mucaaridkana mid baan leeyahay. madaxweynaha mid baan leeyahay waxaan leeyahay madaxweyne muuse biixiow saaxiibkaa maxamed xaashi diiriye lixle wuxuu dhintay isagoo qabli oo xornimo u diriraya. saaxiibkaa maxamed ibraahim cigaallo wuxuu dhintay isagoo dowladnimo buuxda aynu haysanno. labaduba ciilka way ku qabayaan, waayo qabrigay qabanayaanoo qabkoodaa noolaa. madaxweyne somalilan maanta hadaa ka madaxweynaha ilaahay kama dhigay haddii adigo maanta madaxweynaha somalilan burburto
wallaahi qabriga qaban maysid qoomamiyo cil baanad qabanay waxaanu ku leenahay dadka maanta uu soo joogay fadhiis oo dadkaaga talada u jooji oo u jiifi oo u janjeedi oo waxa diinta islaamka ka hormareen ba uga tanaasub ilaa hadii madaxweynaha hadii adigu aad wax soo dhaweeyay wax soo dhaweynaya waxaanu ku leenahay adiga ha lagu ciro oo adiga ha laga badsado oo adiga ha laga adkaado xisbiyada mucaaradkaana waxaan kula talinayaa waarnimayoodina arinta qaboojiyo hadii wuxuba burburaan ilaa cidina wax faa'iido meysay oo waxa soo socotaan waa xukune idinna kubaddu iyo garoonka idin kala bixinay miyiriyo aqli ku socdo mucaarid waa samirka ogaada muxaafidkana waxa leeyahay muxaafidnimo waa dulqaadka ogaada inta waxa ay raaca qodobaan iska waramayo horta nimayo Soomaaliland oo dhamaha baqasay anigu Soomaaliland waxaan soo guurtaaba kuma lihi haddaar kuma lihi صندقتنا كمله شركات ganacsiنا كمله caruurnayga ma joogto afartan tir caafimaad qabana waan hayo hadii cirku soo dumo gooskiisa ka cabaya nabadgelyada aan maalin walba idin kula talinaya mid aan gaar ugu baahanay maaha waa mid dadkay soo doortay dadka ay u talsan u baahan yahay waxaan idin leeyahay ilmaada reer talayda nasteexa qaat ilaahayna waa idin weydiin doonaa waxaan hadalka ku soo gabagabeynaya arigan ku soo gabagabeyn jiray اللهم بلغت وحوري وجايدكي خلاص هاي احمد سينيس يا دليل دونا هذا دليل تمانترا وارغور رودن دليل ما جوجو وليبا waxaan si gaar ah u calaamadinaya nimanka muranka hogaaminaya isku wada reerka reer shaqo saaq waxaan leeyahay wallahi maanta hada waxa haysaa ilaahin weeda waa gumoobi doonta dawlad deegaanka say loogu dhawo wasiir baa ku leeyahay koonfurna ra'iisul wasaare ku xigeen baa ku leeyahay war waxaanaynu haysanayno dadkii kale oo dhan ka bursanay nimcada aynu dadkii kale ku dulminay hadii aynu isugu jooji weyno aynu ilaashan weyno waa gumoobi doontaa ku talaga wuxuu ma lagu talagalay eraygaas anigu inuu taariikhda